بيش الرقية هاي نوع قدرة سوقا أنا فصلت يعني كسب إحنا تيضا لهابان أنا أقول لي سمعتان بيش الرقية هاي نكى بسمع كلمة أنا أحمد عبد الله كان أنا بقى قدرة سوقا اسمه هوادر كثير ودوية دق دان لو قاري دوايد كارتين في لو جرو قراب كيد اسمه شيء ورحمة ها وحوي سكول كني فصل كان وكدا يري سكول قيبي سكره wuxuu jeedaa waxaweyaan dadkii hore waxa dhisi jiray ee dawladii hore waxaweyaan sidaas wax u cameeyay wixii la soo ruqayay imkaanba marka waxa la doonayaa kolka wax la dhisayo iyo kolka wax la sameeyo waxa la daacadnimo iyo dadnimo in lagu qabta la doonayaa buu jeedaa odaygu oo markaas waxaweyaan sida wax loo xumeeyay ayaana loo xumeeyay hadda kadib uu jeedaa wasila gudoomiye halkan aynu joognaa waa ardaydii dugsiga sare ee ruqi gaar ahaan fasalku waa fasalkii labaad ama form 2 dhismaan ay ku jiraan waxa iska leh dugsiga hoose dhexe ee ruqi taasoo aan doonaynay inay uga wareegaan dhismaha cusub oo dugsiga sare ah oo ay bilowgiisii beeshu bilowday wasaaraduna ay ka qayb qaadatay imikana aan doonaynay inay wasaaraddu dhamayso haddii ilaahay yiraahdo oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasiirka waxbarashada ee Samson oo dhismaha dugsigaasi iyadu si waliba si shakhsi ah uga qayb qaadatay oo dad badan hortood lacag ku bixisay oo si shakhsi ah uga qayb qaadatay dhismihiisa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mudane gudoomiye hadda dugsiga ka warrano anagu waxaan ahay golihii councilka ee qabsaday 2013 degmada Baki waxaa ogtiin dugsiga waa dugsigii ugu horeeyay degmada Baki waa dugsiga laga dhisay dugsiga ruqi dhismaha degmada Baki dhamaanteed maanta sababtoo dugsi bay leedahay inta uu soo dhisnaa waxa laga yaabaa dhowr iyo 20 sano inay ka baxayeen arday eerka ka soo gudubtay secondary u gudubtay ka soo baxay sanad walba 30 ilaa 40 ilaa 50 baa ka soo bixi jiray ma waxbarashada marka ay eerka dhamaystaa bay kaari jireen runtii anoo markaan xilka qabanay waxaan ku aasanay dugsigan 8 arday baa ka soo baxay sanadka eerkii sanadka 17 12 waxaan garanay inaan iskuulka furo arrintaa waa aqoonsan buri لعب معلم ما كان سنة أرضي جامعة ذاك بحري عمودي إثيوبيا وهو صباحي لازم على وهو ما تلقاه ده كان للشيء مركز ده وإن مشاركة معلمين تينا بالسرعة بركم أرضي سديس تقارن وين اللي كرتين سديس تقارن وين كيف سنين قبلي ويلبس كل حاجة يبا ويش لا يبا دوكسي سيدي بكفر ما يمنش كأنه كسورني مولان ويقول لك بقاتي dugsiga sare boor ma ka soo rugsay ma shaqo laba macallimiintii sanad baa soo waday leedahay macallin waa loo keenay baa la siinay mushaar la siinay dadka soo xisaabtamay kadib kii labaad baa soo baxay sanadkii 14 waxa u tagay wasiirka anaga waraaqay barsaska dheeraa maray gudoomiyaha gobolka uu lifaaqay raaciyay dugsiga sare raaciyay wasiirku wuxuu warqad bishii 7 sanadka هاي شنو هيدول بقولين تمسك الرقية سريع لأن الصو يقرأ لما فصل بس السوق يعني فصل كيس لحد نفوت الوصايا أنا وهم حنا مركز أرضي دينا وحكوا في الله ويقول لك كده ما نقتال ولا يحسدوا ببعين ساعتين أخوي راضي أرضي وين تلاقي لو لك حتى تمسك مثل ما تسكوا في المسك يا ما نجيب لك حلاي نجيب لك بحيل وشو ما تبيروك بحيل فهمتي وحاول لعب بالس كأوربي لعبت مركز كأوربي أرنتاس واحد قدومي ولا قولي أحمد حاج عبد الله برسي وجود ده دوكس كريسم قدومي كا يقال ورون تبع أرنتاس إن دقائق مركز على كتي كونتينيو من $100 أرسل بحنا ليلي أخو بيون لا أنت مسوي زي خورم ترى وحيد مسوي أنت ولا بالعربي هذا مركز شغلة تكليجي مجال ده مترني العقبة للنسي هذه الشركة دي قررنا جامعة كم بهاد نسيبونا جامعة مركز تكنيك وسير كنا وقررنا
soo dugsigana ogaa uuna weydiiyey dugsigii ma fulay uuna yidhi weli ma fulin baan idhi annagaa sadhisasan haddii aad bilowdana 2 kun oo jeebka ayaga u darsamaytid aad baan ugu mahadnaqaynaa yani markii horena qoraal bay noo samaystay inay hay'adu dhisaan marka dambena jeebkeeda lacag ka bixisay marka dugsigu wax maraya maanta 3 fasal baan dhamaystiro oo jeegad ku maqantay oo arki doontaa imaga tagaydaa ummadda reer Ruqi iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo dugsiga yani beesha aad u caawisayna mahad bay leedahay iyo boorka Saleebaan Axmed Guuleed oo isna hawsha qabanqaabadeeda lahaa labada qof si gooni aan ugu mahadnaqaynaa oo boorka Saleebaan Axmed iyo Samsam Cabdi labada qof aad bay gacan ugu geysteen weydinka arkayo oo dee fasalka dugsigaasi ku jira waa dugsigii dhexe khayr Allah siiyo gudoomiyuhu soo dadaalay iyo intii warka shaqeynaysa أنا مساجد الروم الله يلسوا بحال يرهاو شيء دقي مقالة مدة وين أباته هاوسن بلو واصل يجيله الرجال وعقبتك وقدوميها يوم ما رك قدومك وحبر الشر يدي ركبك السوشقي أنا أنت باسمه أيان إلهي لك الشري وما ضيدي أنا يقربك شيء يقول لي وحبر الشر يا باشا يقول لي دقمده بين قرب كلام سوى أحسن أي يعني ما رك يسكون كاسي دوال أركضونا يا هو نقول اسمه waxaa kolkaan ma had naqinaya marka hore ilaahay marka labaadna umada reer Ruqi marka saddexaad gudoomiye barkweysar Saleebaan Axmed Guuleed oo na kula siiyay wasiirka wasaaradda iyo tacliinta sare Samsam Cabdi si wanaagsan baan wada hadalnay kolkaan sharaxiisina iyo dhibtana haysata kelmadoo may soo celinay mobilkii bay qabsatay 2 kun oo jeebka ayay noo soo dirtay labadu ku waxay dhaqaajiyeen in iskuulkii hawdhismo oo qarabkii la naga haystay rahamada la nooga haystay ee daaqadii albaabada lahaa yaa korkiiba u dhiibay mud dawaadarkii dootan xisaab xilkiina 2 kun iyadoo nidaamsan ayaan u diray imikana koobiga kala duwan soo dhiibana kolkaas sidaa daraadeed aad waxaan ugu mahadnaqanaa dadka ka geystay wanaaga gudoomiyaha degmada koow gudoomiyaha guddiga waxbarashada gudoomiyaha gobolka awdal ee guddoonka waxbarashada ما أردت وزارة وحبرشة تحرير السلام زمزم عبدي ورك فيصل سليبان أو كوها ولها حرير كيها إياه وشيد لها يا أمهات لقنا يا إلهي halkan waxa weeyii ardayda adarkayso ee gabriya wiil albale kolkay ka soo baxeen standardkii ka soo baxeen ay dugsi sare u baahdeen meesha ugu dhaweey waxay noqotay dugsiga sare Baki halkaasina waxa weeyaan 10 kilomitir yaanka 10 kilomitir weeyaan 10 kilomitir qofka lugeeyay si socodka ee meeshaas uu hooyada mooyaane kama soo noqon karo markaasi waxay noqotay in ardaydaasi mustaqbalkoodii ay dhulka ku dhaco iyo inaan gurmano iskuulkoodii u aqoonsano dulsaar baa ku ahaada dugsiga dhexe markaasi waxa weeye si ku meel gaara ayaan ugu ogolaanay oo maaragtay imika wuxuu ka tirsan yahay dugsiga Ruqi dugsiyada sare gobolka Awdal buu ku tirsan yahay maamulahiisu maamulayaasha wuxuu ka tirsan yahay dugsiyada sare kolka seminar loo diray halkiisa uu ka dhaqaaqaa macallimiinta dugsiga Ruqi ka dhigtay waxay ku tirsan yihiin macallimiinta dugsiyada sare gobolka Awdal marka waxa weeyaan aad iyo aad waxa mahad u leh maantana rajiib u fiican yahay dugsigoogii sare ayaa u dhameystirmaya sida odayaashu maraqaadeenna waxa furaha iyo maaragtay dhaqaajinta iyo maaragtay ididiilada iyo dhiirigelinta lahayd wasiirada waxbarashada Samsam Cabdi ayaa lahayd annaguna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaanu nahay heer gobol imikana waxa weeyaan bal ardayda dareenkooda maadaama annaga oo dugsigii hoose dhexe ka soo baxnay sanadar eed marayna ilaana siiyo waxbarasho sare oo dugsi sare maadaama markaa waxaan baahanahay dugsigana uu noo socdo imiga jiingadii baa hadhay inaan jiingadan oo noo saaro imiga wax ka qaatay wasaaradda waxbarashada ee Samsam Cabdi Aadan intii kale danaynaysa wax ka qaadatayba أنا ما نقينا إلى جزاله خير كسيو. horta marka hore ilaahay baa mahad marka labaad waxaan mahad naqaynaa gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka iyo wasiirada waxbarashada Somaliland waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxa kale oo aan mahad naqaynaa waxgaradka iyo bulshada iyadan degmadan Ruqi
oo iyaguna gacan aad iyo aad ballaaran ka geystay sidii aan u heli lahayn xuquuqdeeda waxbarasho annagu ay mashaakil nagu ahayd ardaydii hore ay halka ka bixi jirtay in ay waxbarashada ama saaba ku waayaan ama badii ay ciriiri iyo dulsaar dad kale ay ku noqdaan ilaahay baa mahadle maadaama uu bilaabantay iminka dugsiga oo meel fiican marayo waxaa imika muhiim ah in intii ka dhiban noo saaro dugsigaasi oo kala bar maraya mar labaad waxaan mahad celinayaa maamulka gobolka oo gudoomiyaha gobolka Baki iyo gudoomiyaha waxbarashada iyo dhammaan ciidii danaynaysa danaha dugsigan sare waxaan leeyahay oo maasintii halkan aan joognaa waa dugsigii sare ee cusbaa la dhisayay ee ruqi haddaan idinka warbixino dugsigan waa 3 fasal oo jiingadii ka maqan tahay wixii kale oo dhani laakiin gidaaradii dhammaadeen dugsigaasi kulley waxa ka qayb qaatay dadka beesha iyo wasiirka waxbarashada runtii aan su'aalnay Amuud wanaagsan yani dugsigaas oo taageero noogu siisay oo hawshan iyadoo ay leedahay maanta wasiirka waxbarashada inuu leeyahay maanta horta inta dhisan waxa ku baxday 9 kun iyo xogaa oran maanta dugsiga kala bari ma joogo 3 fasal dhisan kala bari joogin maanta haday talbiista iyo nuurad iyo telefoon iyo jiingad iyo loox u warsiiyay iyo mas'uul iyo xafiis u warsiiyay iyo barnaamij u warsiiyay taasi in laga qayb qaato oo wasaaradda iyo hay'adaha la shaqeeya ay naga qayb qaataan oo dhameeyaan hawshaas waa ka codsanaya anagoo mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashada heer gobol iyo heer qaranba wasiirka suuduwaha gobolka gudoomiyaha gobolka ee waxbarashada inta waxa ay dheer waan maalintii u sheegnay wasiirka waxbarashada lix macallin in 2 sano soo wadnay halkana waa mii ardaydu wali way yartahay dagaalada dhulkan uu hooseeya maalinta waxay ballan qaaday 3 macallin in la shaqaaleeyo gudoomiyaha gobolkana way fartay tiina suura gasho waa rabnaa oo dhaqso suura gasho oo 3 macallin mushaarkoodii iyo magacaantoodii iyo hawshoodii la bilaabo aad baan u jeclahay waxaan codsanayaa gudoomiyaha gobolka ee waxbarashadu wuu arkay maanta dugsiga halku marayo inta dhiban isagii wasiirkiisa u deynaya amaan ilaahay baale marka labaad waxa leh shacbiga beeshan ruqi ee gudiga degmada iyo gudiga waxbarashada ee beeshan gudiga waxbarashada ee maaragtay beeshan iyo gudiga beeshanba dadka reer ruqi oo hawsha u guntaday ayaa maaragtay iyaguna amaan leh waxa kale oo amaan leh wasiirka wasaaradda waxbarashada oo dugsigan aan arkana ee qabyada ee laakiin dhismay ee sida adag u dhismay dhagax ku dhismay waliba yaana qaybtii koowaad ee taageero ahayd oo dibadda nooga timaada koobka ahayd waxa kale oo ilaahay mahadnaqanaa Borak Faysal Saleebaan Axmed Guuleed oo na xiriiriyay wasiirka wasaaradda aqoon hormaanaan wada lahayn waxa jaamacadda ayayna arintaas ka dhacday wasiirka wasaaradda Zamzam Cabdi noo xiriiriyay kolkaan warbixintii siinay ay naxday si wanaagsan bay noo qaabishay iyadoon hadal noo soo celin bay 2,000 oo maaragtay dollar jeebkayga kulkiiba ka soo bixisay noo soo dirtay waxa noo dhaqaashisa hawshaasi dadkii kale magaaladana in iyaguna macaawinada ka qayb galaan lacagtaasina waxay ka noqotay qalabka ku jira ee daaqadaha iyo albaabadu ka mid yihiin 5 iyo 10 daaqadood oo arkaysaa oo ku jira imika iskuulka iyo 3 albaab oo waaweyn oo sii jeedka ayaa maaragtay kolkiiba oo la lacagtooda naga haystay bay lacagtii madaxeygii ku baxday si fiican ayaa qalabkii u siinay xisaab xidhkoogina wasiiradda iyaan u celin kolka sidaa ayaa qaybtii soo hore u hay lacagta ku baxday ilaa 10 way ku dhowdahay 2,000 oo magaalada ka helay 2,000 ee Zamzam hayna siisay 6,000 oo beesha ah ilaa 10,000 iskuulku u maraya mana waxna kama dhawa imika dhismihii waan ka soo dhaadhacay waana kaanji qasawirka iyo quruxdana dugsiga aan soo maray ee cadudu ay ku dhiganaysay yaan ka qaadano inuu qayb quruxda u dhaco oo kaanji u dhacaan rabnaa si qurux badan u dhaco waxaan rabnaa qaabka naqshadiisii way noo dhan tahay in qaabka naqshadiisa la noo dhameystiro waa maxay waa 4 fasal waxa weeyaan dayrkii waxa weeyaan 2 xafiis maaragtay iyo store waxa weeye 4 masquulood 2 dumarka iyo 2 hablaha ah qaabka naqshadu ugu qoran yahay
إلا نوغو دمايستيران دوننا وزاردي iyo maaragtay wasiirkii wasaaradda waxbarashada iyo gobolkiiba nagala wareegaan hawsha halkaan gaarsiinay hay dhaqaajiyaan inta ayaan codsanaynaa ilaahay baana mahadle inta dadka ka qayb galay baana mahadle haddaan wax idinka sheego howlaha laga qabtay sanadkii 2013 2014 sanad dugsiyeed oo ka duwan sanadka caadiga ah weeyii sanad dugsiyeed haddaad maqasho waa laba sano iskalay weey marka labadaas sano iskalay sanadka iskalay wixii laga qabtay gobolka Awdal midalan haddaan nii sheego waxa dhismo cusub lagu sameeyay oo iskuulo gaar loo dhisay 16 iskuul ayaa gobolka Awdal laga dhisay muddadaas 16 ka iskuul laba waxa weeyaan dugsi sare weeyaan dugsi sare weeyi oo mid qabyo yahay oo waxa weeyaan dugsigan imkaan joogno nidaamkiisa iyo aqoonsigiisa waxa la galay sanadkii hore imika sanadkan bilowga bishii koowaad weeyaan kolka maaragtay lacagta dhiirigelinta yeelatay sida shakhsiga ah u bixisay wasiiradu sanadkan koowdiisin weeyaan markaasi waxa weeyaan laakiin qorshihiisu wuxuu ahaa sanadkii hore buu ahaa oo maaragtay la aqoonsaday marka wuxuu noogu tirsan yahay markaasi dugsiyada sare ayuu noogu tirsan yahay waxa kale oo la dhisay maxay ahayd 15 iskuul oo maaragtay muxuu ahaa ya dugsiga laga dhistay primary waxa extension baa lagu sameeyay ujeeda 6 iyo halkaan ku noqdo weeyaan 16 iskuul waa iskuulo cusub oo sideeda loo dhisay 15 iskuul waa kuwa fidin lagu sameeyay extension lagu sameeyay oo la biiriyay weeyaan tusaalahan waxa weeyaan dugsiga sare Sheekh Ali Jawhar dugsiga sare Ardaale dugsiga sare ee Aadan Isaaq waxa lagu biiriyay midna laba lagu biirshay labada kalena min 4 baa lagu biirshay oo waxa weeyaan 10 fasal weeyaan yaa lagu biiriyay marka iskuulo kale oo ku daadsan gobolka intiisa kalena sidaas ayagana loo biirshay kuwa dhismaha cusub lagu sameeyayna waa 16 sano horeba u soo sheegay inta waxa ag socotay maxay kuwa la dayactiray baa iyaguna jira waxa kale oo jira inta sanadkan imika bilaamay in noo qorshaysan weeyaan oo awalka in dhamaystirka ay ku qoran yahay dugsiga hadda maanta aan joogno awalka in horta isaga la dhamaystiro ay noogu qoran tahay iyo kuwa kale oo saad ugu daba jira weeyii waxa weeyaan markaasi waxaan aad iyo aad halkan ka cadeynayaa wasiiradda waxbarashadu inay aad iyo aad ahmiyad gaar ah u siiso gobolka Awdal waxbarashadiisa dhismihiisa xagga iskuulada xagga maaragtay shaqaalaynta shaqaalaha labada sanadood ee maaragtay dambe inta boqolaal macallin bay gaaraysaa waxay gaaraysaa boqolaal waxay gaaraysaa nadiifiye waashmaano marka waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada ee heer qaran waxaan ku dhiiri gelinayaa hawshu ma dhadhawa waxa kale u baahanahayna waa in maaragtay si maaragtay Allahumma salli ala Muhammad si mudnaanta koowaada in la noogu tixgeliyo oo gaar ahaan iskuulka maanta aan joogno ee ardaydiisa ay dulsaarka ku tahay dugsigii dhexe ee waxa uu hadhanaa uu yahay jiingad saarkii iyo wixii kale qabyada ka ahaa in la noo dhamaystiro ayaan rajaynaynaa oo mudnaanta koowaad laga bilaabo ayaan iyo shaqaalaynta halkaas shaqaalaynta macallimiinta haddaan ku noqdo waxa weeyaan sida uu sheegay gudoomiyaha degmadu waxa weeyaan halkan waxa lagu bilaabay horta dugsi sare kolka la leeyahay waa inay dawladdu soo qorshayso shaqaalihiisa macallimiintiisa ardaydiisa laakiin kan waxa keentay maxay baahi degdeg ah keentay baahi degdeg ayaa keentay kolkay ardaydii ka soo baxday dugsigii hoose ee uma lugayn karaan san hore bay nagu sheegay ilaa 12 kilomitir oo bakiya markaasi arrin degdeg ah marka wax waliba wada degdeg buu ahaa macallimiinta shaqaynaysa emergency oo kale ku yimiday hadda waxay ballan qaaday wasiiradu half iyadoo qorshe markaasi noo dhisan oo maaragtay ku talagalkii gobolku wali awlaaban yahay haddana waxay iyadu jeebkeeda ka ballan qaaday oo anigana amar igu siisay tixgelinta koowaad in saddexda macallin la soo siiyo inta kalena ay ku daba xigi doonto intaasaan ku soo koobaya wassalaamu calaykum من عمل صالحا فلنفسه نيك عمل ولا سميه الى نفسي سو كي ولا له يعني نفسه وحو دغاي waxa weeyaan dadka dhulka Ilaahay qaale
dadkana ilaahay baa leh وعندنا دتك وحنا بقى شيء والقي سكول كان كدقنا halkeen war ana idaahiya kaaleen walba laftaydan bixiyay ma dadka wax gaar kama lahayn marka ilaahay baa iskale laakiin inta mulkiyada ka bixiyo waqta ka bixiyo dawladda liska ka siiyo ay ku jirto taas waa halkaas waxaan dhakhtarkii baan idiga siiyo iskuulka nidsiiyaan walka talada wax la wixii wax ka qabtayba waan mahad celiyaa